Horta marka ugu horeysa Pontus Marine businesska Pontus Marine maaha wax cusub. Waad ogtihiin waddankan xeebteeda waa at least 860 kilometers long, laakiin Somalilanders kama faa'iidaystaan. Maanta waxaan ii sheegaya reasons why iyo sidaan ka faa'iidaysan karno. مشروعا waxaan doonaynaa inaan investment gelino cold storage, transportation iyo marketing of the kalluunka Somaliland laga helayo. Marketkana waxay noqonaysaa United Emirates, Ethiopia, Europe, China and Australia generally. Markan presentation kan Shakila Bristol, I think it was Shakila Birmingham, aan ka sameynay. One of the questions that we deal with inaad magacan Pontus garanayno maxaa ku diiday inaad magaca Soomaaliya mashruuca u bixisay. Waxaan ku leeyahay businesskan waa business for Somalilanders, laakiin waa international. Maaha for Somalia or Somaliland, waa for Somalilanders, laakiin marketkeeda weli noqotaa international. Marka si ay dadka dibadda joogaan inay comfortable noqdaan, that's the reason why we use this name, Pontus. Pontusna waa Latin for bridge. Marka companyga is the bridge between Somaliland and the rest of the world. Kalluunka waa one of the biggest international global businesses in the world, maaha local business. Business kana Somaliland weynay ka dhashay. Waxay qiyaaseen at least 90 million tons per annum capacity weeyaan. Qiimaha kalluunkana sanadkii walba wuu kacaa. And the demand from places like China was equal to sanadkan waxaa la qiyaasay retail marketkeedu yahay at least $450 billion sanadkii walba uu kordhiyo. Dadka ka shaqeeyana at least 260 million people worldwide baa ka shaqeeya. Marka this is a global business. Somalilandna inay sheerkeedii qaadataa. Somaliland received wanaagsan bay leedahay. Why? Because the Gulf of Aden, coastline Kenya, it's one of the richest coastlines for fisheries in the world. We are very lucky. Hadana kama faa'iidaysan. It's a coastline which is rich in at least 600 species of fish, left for all. And kalluunka halkan laga helo waa kalluunka ugu qaalisan. Tuna, lobster, cuttlefish, shrimp, shark, and many more. Markabka waa meel la yiraahdo May. Waad aragtaan waa markab iska burburan oo aan shaqeynayn. mushkiladda maantana haysata xagga kalluunka mashruuca kalluunka waxay tahay less than in 2004 UNDP waxay qiyaaseen between 90 and 120,000 tons per annum of fish baa laga guraa coastline-ka xeebta between 90 and 120,000 tons baa laga guraa. Somaliland are less than 5% they can faa'iidaystaan. Mushkiladda haysatana waa dhowr. First of all, no cold storage.